ana oo ah gacan ku dhiig leh xirfad sare leh ayaa safar gaaban oo shakhsi ah ka soo laabatay markii ay gurigeeda timid waxay la kulantay musiibo weyn albaabka agtiisa waxaa yaalay meydka haweenaydii guriga ka shaqaynaysay taas oo muujinaysay in la dilay isla markii albaabka la furay ana markiiba waxay u carartay qolka macalinkeedii balse nasiib darro waxay aragtay isaga oo isna la dilay meydkiisuna yaallo musqusha dhexdeeda iyadoo garowsatay in nolosheedu halis ku jirto ana waxay qaadatay xoogaa lacag caddaan ah iyo dhowr baasaboor si ay uga baxsato goobta intii ay baxsanaysay ayay aragtay gaari shaki leh oo bannaanka taagan daqiiqada yar kadib laba nin oo hubaysan ayaa rasaas ku furay guriga ana waxay si degdeg ah ugu dhuumatay tiir weyn miis ayayna rogmatay si uu uga celiyo rasaasta markii ay labada dablay gudaha soo galeen waxay u maleeyeen inay dishay mid ka mid ah ayaa bannaanka u baxay si uu warbixin u bixiyo halka kan kalena uu usoo dhaqaaqay inuu meydkeeda hubiyo laakiin ana ayaa si lama filaan ah uga soo baxday dhumashadii waxayna dishay ninkii soo galay markii ninkii kale gudaha ku soo noqday wuxuu arkay saaxiibkiis oo meyd ah wuxuuna isku dayay inuu baxsado balse ana ayaa ka hor istaagtay si ay u ogaato cidda ka dambaysa dilalka ana waxay tagtay goob uu joogay saaxiibkeed khabiirka kombiyuutarada markii ay halkaas gaartay waxay ogaatay in isagana la dilay ka hor dhimashadiisa wuxuu uga tegay qalab lagu hago diyaaradda droneka ana ayaa hawada gelisay droneka waxaana uu u keenay usb ay ku jireen xog muhiim ah markii ay xogta furtay waxay heshay sawir warqad ay ku qoran tahay magaca nin lagu magacaabo sangbio oo ku sugan Vietnam ana waxay isla markiiba baaritaan ku samaysay sawirkiisana way heshay iyadoo aan waqti lumin ayay tigid diyaaradeed goosatay waxayna u safartay Vietnam si ay u raadiso ninkaas markii ay Vietnam gaartay ana waxay si ula kac ah u carqaladaysay koox mootoley ah oo caan ahayd si ay dareenkooda u soo jiidato hogaamiyihii kooxda ayaa markiiba aqoonsaday ana wuxuuna fahmay inay tahay qof khatar badan ana waxay ka codsatay inay ka caawiyaan sidii loo joojin lahaa kolonyada sangbio maadaama uu mar walba la socdo ilaalo badan oo hubaysan hogaamiyihii kooxda ayaa aqbalay codsigeeda habeenkii xigay kooxda mootoleyda ayaa wadada u xirtay sangbio iyagoo xakameeyey ilaaladiisii ana waxay gudaha u gashay gaarigiisa balse ma aysan dilin waxay ogeyd inuusan isagu ahayn maskaxdii ka dambaysay dilkii macalinkeedii waxay siisay lambarkeeda taleefanka iyadoo ku amartay inuu la soo xiriiro haddii uu diyaar u yahay inuu sheego qofka dhabta ah ee wax walba ka dambeeya maalintii xigtay ana waxay si ula kac ah ugu dirtay sanduuq sigaar qaali ah sangbio aad ayuu u argagaxay wuxuuna garwaaqsaday in haddii ay maanta hadiyad u soo dirtay berri ay wax ka khatar badan u diri karto cabsi darteed ayuu wacay ana isagoo ku casuumay xafiiskiisa si uu u sheego xogta uu hayo markii ana xafiiska timid waxay aragtay sangbio iyo gacantiisa midig oo lagu naanayso black intii uu sangbio isku dayayay inuu hadlo black ayaa ka hor istaagay ana waxay si degdeg ah u bilowday iska caabin waxayna qabsatay qori ay ku dishay laba ilaalo oo bannaanka joogtay waxay isku dayday inay baxsato balse albaabka hortiisa ayaa laga qabtay waxaana loo taxaabay xabsi qarsoodi ah maalmo badan ayaa si adag loo jirdilay si ay xog u bixiso balse ana wax sir ah ma aysan sheegin markii la ogaaday inaysan jabayn waxaa qolkeeda loo diray 3 nin si ay u dilaan laakiin ana waxay ka faa'iidaysatay qaladkoodii waxayna halgan gaaban kadib dishay 3doodii kadibna waxay ka baxsatay xabsiga iyadoo adeegsanaysa xeelad ay ilaaladii ku khalday kadib markii ay ka baxsatay xabsiga ana waxay go'aansatay inay ka aargudato black oo ahaa ninkii amray jirdilkeeda habeenkii ayay si qarsoodi ah ugu dhacday gurigiisa waxayna ku qasabtay inuu sheego qofkii ka dambeeyey dilkii macalinkeedii markii ay heshay xogtii ay u baahnayd ana waxay ku dishay black isagoo ku hafinaysa biyo hadda bartilmaameedkeedii ugu dambeeyey wuxuu ahaa ninkii amray dilka macalinkeeda si ay ugu dhowaato ana waxay isu ekaysiisay shaqaale adeeg oo ka qaybgalaya munaasabad weyn intii uu ninkii bartilmaameedka ahaa khudbad jeedinayay ayay qori la soo baxday si ay u disho laakiin ilaalada gaarka ah ayaa si degdeg ah u dareemay khatarta waxayna goobta ka kaxeeyeen ninkii la beegsanayay ana ma aysan sii eryan halkii waxay dhex gashay dadkii munaasabadda joogay iyadoo ogeyd in ilaaliyaha ugu awoodda badan uu daba iman doono qorshaheedu wuxuu ahaa inuu keligiis uga daba yimaado meel ay horay ugu diyaarisay dabin markii ilaaliyihii yimid waxaa dhacay qarax xooggan oo gilgilay dhismaha ana way ka badbaaday qaraxa waxayna qaadatay hubkii ka dhacay ilaaliyaha si kastaba ha ahaatee waxay ogeyd in ninkaasi uusan weli si fudud u quusan doonin sidaas darteed waxay uga tagtay cinwaan iyadoo ku casuuntay inay ku kulmaan goob gaar ah si ay u soo afjaraan colaadooda labadooduba waxay isku arkeen goob cidlo ah iyadoo qof walba ogaa in mid keliya uu noolaan doono xiisadii ayaa cirka isku shareertay waxaana la maqlay hal xabad oo qori ah markii qiiqu kala fogaaday hal qof oo keliya ayaa ka soo baxay goobta filimkuna halkaas ayuu ku soo dhammaaday isaga oo daawadayaasha uga tegaya gunaanad xiiso leh